nabadgelyada sanyare inaad daacad u tihiin oo daacadnimo kaga shaqaynaysaan oo mid ka tihiin ma wallaahiba ma bilaahiba tallaahiba bismillaahi raxmaani raxiim mid baa hadhay dhegeysaa mid baa idiin hadhay waxaa idiin hadhay ciidankan halkan ku soo jira halka ku soo jira inaad kala diraysaan oo nin walba gurigiisa iyo qorigiisa qabadsiinaysaan oo aan ciidan halkaas ku jira jiri karin ma wallaahiba ma bilaahiba ma tallaahiba kii saddexaad oo ahaa ina ciidanka la shaqaynaysaan tobankiinaas ina ciidanka la shaqaynaysaan midinku wallaahiba midinku bilaahiba bismillaahi raxmaani raxiim ayay markii ay diriir ku dhex martay deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer laba beelood oo walaala oo halkaasi wada degaan diriirtaasoo saameysay deegaano kale oo ka mid ah hawdka gobolka Togdheer haddaba wafdi ballaaran oo horkacaya barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahin Nafaqo oo ay ka mid yihiin 7 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo 20 cisho ku sugnaa magaalada Buuxe xarunta gobolka Togdheer ayaa safar ku soo maray hawdka gobolka Togdheer waxa safarka barasaabka gobolka Togdheer ku wehelinayay gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer uqaasha labada beelood ka soo jeeda madax dhaqameed salaadiin iyo ganacsato ka soo jeeda labada beelood ee walaalaha ah halkaasi diriirtu ku dhex martay waxaanay soo mareen deegaankii Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer ee diriirtu ka bilaabantay iyo deegaanadii kale ay saameysay colaadaasi waxaana gebi ahaanba lagu heshiiyey in wax kasta oo la kala tabanayo lagu dhameeyo wada hadal iyo shir ka furmaya magaalada Buuxe xarunta gobolka Togdheer dhawaan gebi ahaanba labadii ciidan beelood ee halkaasi wada deganaa ayaa barasaabka gobolka Togdheer xildhibaanada golaha guurtida uqaasha qaar ka mid ah labada beelood ee labada daraf ka soo kala jeeday iyo ganacsatadoodu waxay gebi ahaanba ku guuleysteen ciidamadii kala duwanaa ee halkaasi deganaa in gebi ahaanba la kala diro hubkiina laga dhigo wax kastoo la kala tabanayana in lagu dhameeyo wada hadal madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan ballaaran ee ka kooban gudidii nabadgelyada Togdheer maamulkii gobolka Togdheer oo barasaabkii hogaaminayo xubnihii guurtida oo 7 xubnood oo ka yimi Hargeysa oo ma u joogay arinta tan nabadeynta gobolka Togdheer koonfurtiisa deegaamo fara badan oo gobolka Togdheer ka mid ah beesha Ciise Muuse iyo beesha Habar Yunis waxa maanta halka wafdi maraya odayaal maraya horena waxay ugu soo ambabaxeen inay nabadda xidhaan xabad joojin sameeyaan ciidanka kala raraan maanta intii ugu dambeysay ee muhiimadda ahayd ayaa loo soo ambabaxay oo ahayd hubka dhigista ciidamada kadib ay heshiis u gaaraan ujeedka koowaad ee maanta loo soo ambabaxay waxay ahayd in la soo kormeero ciidamadii hubka laga dhigay ee la kala raray alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ku soo wada guuleysanay sanyaraa ugu dambeysay sanyarana ma taasoo iyo ka dhamaysto waa kuwa halka toban alxamdulilaahi rabbil caalamiin maamulka gobolka waan ugu mahadnaqaynaa deegaankii aanu soo marnay iyo deegaankan aanu joognaba waxaanu kula talinaynaa dardaaranka iyagii ahaa inaan hub lagu arag dawladda ay la shaqeeyaan ciidanka ilaaliyaan labadan beelood ee walaalihii wixii dhex yaallaba way dhammaysanayaan ama dhimasho ha noqoto ama dhaawac ha noqoto ama deegaan ha noqoto hadal baa ka furan gobolka Togdheer buu ka furmayaa furayaashiisii maanta ugu horeysa xabadda la dhigay baa ugu horeysa ciidanka la kala raray baa ugu horeysa marka ugu horeysa ciidanka booliiska halkan ka howlgalay aad iyo aad baan ugu mahadceliyay saraakiisha iyo guud ahaanba waan idin mahadcelinayaa waanad u adkaysateen hawshii qaranka ee ummaddiina aad u soo gurmateen waan idin mahadceliyay alxamdulillaah aad baad mahadsantihiin waxaa kaloo mahadceliyay taliyaha ciidanka booliiska soo goor walba nala garab taagnaa taladii ciidanka taladii amaradii iyo adduunba wuxuu hayay nala garab taagnaana halkan aan uga mahadcelinayaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay anagu wax kale oran mayno ciidanka booliisku wuxuu ku amran yahay cid kastoo qori sidata aba khalkhal nabadgel darro wada waxaan oran doonaa qoriga dhig hadduu dhigi waayo ciidanka booliisku tallaabada sharciga ah ayay ka qaadi doonaan waxaan leenahay ha ku talagelina oo ha oga sidoo hore ha u dhaqmina ciidanka iyo muxuu ahaa qolada urursanna sida aynu uga ballan ilaahay baa mahad iska leh hadal badan anigu odhan maayo dhammaan kolley dhulkii aynu soo marray ee labadan beelood wada joogeen
waxaynu kula kulannay waxa weeye intii laga warramay oo ah kormeerkii in la kala qaaday ciidamadii hubaysnaa ee labada beelood waxaa caddaatay in ciidanka go'aankaasi fulay in la kala qaaday in la kala diray si ay u furanto nabaddii ballaadhnayd ee dhidibada loogu aasaayey jiritaanka iyo nolosha bulshadeenna si loo gaadho go'aankaannu u soconaynay kaasuu ahaa waanu fulay ilaahay mahaddii weeye waxaan kula dardaarmayaa uun bulshadan aannu dhex maraynay hawshaa sidaa aynu maanta u soo agaasinnay waa inay ahaataa oo aanay waxba ka soo noqonin cidda xumaynaysana waa inay idinku gudihiinna ka qabataan una soo gudbisaan laamaha amniga shaqaaqadii ka dhacday deegaanada Cali Saahid iyo hawdka Burco arrinkaasi laba fays buu ahaa maanta fadliga Ilaahay waxay noo soo gabagaboobay fayskii koowaad oo ahaa ciidamo beelaadadii la soo ururiyay ee meelaha kala duwan la isaga keenay maxay ahaayeenay ee shaqaaqada loo keenay in maanta ay suurto gashay in la kala diro Ilaahay baan ku mahadsan waxaan kale u mahadcelinayaa odayaashii labada daraf ee dadaalka dheeriga ah geliyay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ciidamada bilayska iyo ciidanka militariga ee ciidamada qalabka sida oo aad iyo aad runtii habeen iyo maalin iyo taliyaashooda soo maxay ahaayeenay walaalahooda inaan dib dambe dhicin maanta waxaa suurto gashay fayskii koowaad ee nabadda lagu xidhay ee xabajoojinta lagu sameeyey oo ah ciidankii in la kala diray fayskii labaad ayaa inoo bilaabmi doona haddii Ilaahay ka dhigo shirkiina wuxuu gogashi taalaa burcana ayuu ka furmayaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii Ilaahay ka dhigo biri ama saa dambe waxaan bulshada xariirta ah ee walaalaha ehelka ah ee ilaa maanta aanu dhex maraynay deegaamada kala duwan iyo guud ahaanba u soo jeedinayaa sida qiimaha leh ee sharafta leh ee aad u qaadateen nabadgelyada iyo wanaagga taas baynu isku ognahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciidamadu waxay amar ku qabaan sida taliyuhu sheegay qof dambe oo qori sita iyo ciidan dambe oo meel lagu sheego intaba inay tallaabo ka qaadayaan aad iyo aad waa Siciid Cali Cusmaan xalays